odagayga iskaashatada gaadiidku ka shaqeynay waa gurigiisa lagu dhex dilo dawlad ahaan loo dilay haddana waxay dhibaateen waa dawlad oo ay haysato waxa ay ka cabanayaan dacwad dhul oo soo jiitamaysay muddo 5 sano ah odayaal iyo haween maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa sheegay inay leeyihiin milkiyadda dhul ku yaala xaafadda Control Afgooye jihada degmada Daynile X Hodan waxaana ay soo bandhigeen xogta muranka dhulkan oo ka kooban 110 boos ayaa markii hore waxa uu ahaa goof shakhsi uu lahaa waxaana la sharciyay sanadka markii uu ahaa 1987 wixii xilliga ka dambeeyay goofka ayaa cabir la saaray hase ahaatee sanadihii dambe waxa soo shacbaxay in muran la geliyay dhulkaasi qoysaskii lahaa dhulkaas ayaa maanta soo bandhigay dukumiintiyo ay ku cadeynayaan milkiyadda gurihooda xubnahan ayaa sidoo kale sheegay in khilaaf uu ka jiro dacwadaha dhulka ee la gudbiyay waxaana ay sheegeen in kiiskan ay ka muuqato marin hababin oo aysan cadeen shakhsiga booskiisa dacwadda ay ku socoto sidoo kale waxa ay sheegeen in dhulkan uu yahay goob dad shacab ay leeyihiin waxaana ay u jeediyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Axmed Maxamed Foodey oo lahaa goofkaasi isla markaana u soo joogay waqtigii loo sharciyay goofkaasi sidoo kalena cabirka la saaray ayaa ka hadlay arinta murankan iyo waxa ay la xiriirto waxaa noqday 113 boos waxaa la isku dacweynayaa dukumiinto oo aan aqaanin aacirkana ka timid oo mataqaana leeyahay waa damaanyaale oo wadan kale laga keenay korka nagala soo saaray dhulkaas taasaa dacwada keentay ilaa in 5 sano dacwadaas waa socotaa 5 sano socotaa insha Allah taala dhulkaas inay dadka hadda degan oo ku nool oo dhulka dukumiintiyal ku haysta iska dhulkaas maartay ay soo sheegeen waxa kamid CID noola diray oo la yiraahdo dadkaas waa tuugo dhulka ma balaba CID waxay soo saarteen aanu ku leenahay waxaan noola diray maartay hawlaha guud oo hada damaanyaalaha hawlaha guud ku shaqalay hawlihii guud ayna waxay soo saareen markii dambe ugu dambeysay in maartay dhulkaas oo leeyahay anaga aan leenahay shacbi oo leeyahay oo damaanyaalna wax la yiraahdo soonaha ba laga ma yaqaan warshada maartay alxamdulillah rabbil alamin damaanyaala waxa uu sokay suuqa xoolaha suuqiisa meel yar ku jirta inta kale waa sidaada damaanyaala wax la yiraahdo jidkan warshadaha soonaha ba laga ma yaqaanba marka ninkaas warqado oo kala feelsa oo meel kale ka soo raro dusha naga soo saaray intaas oo sanadna dacway waay maartay insha Allah taala marka in meel naga saaraan doonayna oo dawlad ummadda naga qabato goofka waxa la sharciyay 87 meel oo yar waa jiraan laakiin 87 yaa la sharciyay dalninkii sharciyayna waa jooga aniguna waa noolahay sidoo kale waxa madashaas ka hadlay qaar kamid ah dadka booskaasi dhulalka ku leh oo kala ah Garaad Abuukar Maxamed Cabdi Xasan Shimaali Xaliima Aadan Cismaan Sahro Axmed Maxamed Foodey iyo Farxiyo Maxamed Yalxow dhamaantood waxa ay sheegeen in iminka gurihooda ay sharciyad rasmi ah u haystaan isla markaana iminka ay dhulboob kala kulmayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda waxaan ka cabanaynaa dhulkeena 24 saac dalaa taga way yimaadiin waa naloo sheegaa waxaan u tagnay maxkamadan tagnay maxkamadda markaan tagnay waxaan ka cabanaynaa nin Leyla Imaam Caraayo Rooble oo dacweyhaya Axmed Maxamed Foodey oo goofla ah iyo Cilmi Axmed nin Leyla oo dhulka asna hal boos kula cilmigu ka mid yahay Foodeyna goofkaas 2 boos ku leeyahay markaan tagnay waxa la yiri dhulkan annaga lahaanay annaga ayaa iska leh 110 qof aan nahay annagaana leh dhulkaas waxaan rabnaa ciidana dacweyhe in la hor keeno gudoomiye maxkamadda racfaanka garsoore nin ayuu ahay wuxuu yiri war dadkan dacwo ma qabtaa Imaam Caraaye wuxuu yiri wax dacwo uma qabo dhul waxaan lagu haystaa X Control waxaan ahay haweeney oo ilmo aboon haysato oo gurigeeda joogto waxay ka kooban ilmeega 6 cunug hanti kale iyo xoolo kale uma haayo oo dhulkaas aan ahayn horta kitaabiyo Ilaahay weyn waaxidka ah xaq Allah ku tuso ko mideeda kale karfana ka qaadanaysa adduunyada dhan darajo lagu ma siinin boonan lagu ma goonin ina joogeyso waxaad ka leedahay dhan waxa ka qaadanaysa karfan cad maal iyo adduunyo iyo waxyaalaha dhan waxa kaaga fiican ina Ilaahay xasuusto oo adduunyo aad fiirin oo cadaalad aad fiirsan aniga ninkeyga gurigeyga dhaxdiisa lagu dilay gabadheeda lagu dhaawacay ciidan dood u haysta ma jirto ciidan buuq u haysta ma jirto ciidan kurbo u haysta ma jirto haddana ilmaheyga xaqoodii oo guri kale xoolo kale weyn hanta kuloon dawladda waxay qabanin walaalan waxay qaban eelan waxay qaban halkii guri oo jeengad ah oo fille iga dhisneen in lagu imaado
taas mid dhacaysa ma ahan dowladdii siyaad barre intay naga dhacdo maaha inta kale oo naloo sharciyeeyey oo ninka la yidhaha cabdi ciid nin la yidhaha oo noo sharciyeeyey oo waxaan ku leeyahay sharci aan ku taagannahay oo aanan cidna ka xoogin ninka inuuna xooga raba in nagala qabto oo sharci darrada loogu soo xakumo dhulkeenna wax xukuman ma jiraan loomana xakumi karo marka waxaan xukuumadda ka codsanaynaa oo hadda aad moodo xilliga kala guurka ah xilliga kala guurka loogu faa'iidaysanayo ummadda lagu dhibaataynayo duqa magaalada horta nin aad iyo aad u sharaf badan baanaga ku ognahay ninkaasi hadda oo xafiiskaagii la keenay asalna laga soo bedelay xeer ilaalinta laga soo bedelay xeer ilaalinta korka laga soo bedelay sabab baa loogu soo bedelay sabab la-aan ma ahayn xafiiskaagaan la keenay marka ninkaas waxaan leenahay inaanaga ku xadgudubno ma rabno ninka la yidhahdo maxamuud cabdinuur kitaabi sidaa darteed duqa magaalada iyo hay-adaha guud ahaanba waxaanu ka codsanaynaa waxaa dulanka ummadda iyo dowladda madaxa isu gelinaya in ay qabtaan maxaa nagula haystaa aawo dowladdii aawo madaxweynihii aawo ra-iisul wasaarihii aawo maxaa ummadda islaamkeed wixii mas-uuliyadda qaada aawe wixii mas-uulka qaada aawe duqa magaalada aawe maxaa maalin walba nooloo soo weerarayaa maxaa noola laynayaa anagu agoon leeya maalin 7 cunuga 6 cunuga agoona haysta aabahoodna waa la dilay maxaa qarxi sooba ku dhintay meel aan aadana ma aqaan helay nabad gashaan